shuuradu waxay ahayd cuntooyinkeenii hore ee quruxda iyo qiimaha lahaa ee aynu u lahayn hidaha iyo dhaqanka. waxayna ahayd cunto aad iyo aad u qiimo badan oo inooga soo go'da beeraheena. oo markaynu beerano iyadoo xasiid aynu beerno kadib aynu soo gurno aynu shaqolo aynu wadno in mooyaha ku tunno. waxay ka mid ahayd cuntooyinka dhagaxa lagu ridqo. waxay ka mid ahayd cuntooyinka qiimaha badan ee sida dhaqanka xooga la saaray si qorsiga sida qiimaha badan loo xiiseeyo. waxaan marinaa waqti hadda casriyaysan makiinada soo baxay shuuradii makiinada la geynayaa waa la soo ridqayaa ama iyadoo ridqan baa dukaama laga soo gadanayaa. laakiin taa waxa ka macaan tii gacanteena lagu ridqay ee mooyihii lagu tumay ee dhagaxii lagu ridqay ee masaftii lagu kala haadiyay si qurux badan oo sharaf loo kariyay. marka inta loo sameeyo shuuradii maxaa lagu darayaa geedo la tumay sonkor yar lagu daray qajiro la qalajiyo basas laga dhiga lagu daray. marka aad iyo aad u macaan tahay shuuradeenaasi. marka waxaan kula talinayaa dadka badidoodu shuurada makiinadaha isticmaalaan intay dhaqankeena hore u soo noqdaan ay si sharaf loo isticmaalaan. haddaba waxaynu u baahanahay in shuuradii u baran inaynu galey soo iibsano aynu soo qaadano tibiyo mooyo soo qaadano 2 aynu soo qaadano masaftii 3 aynu doonano 3dii dhadhaar aynu doonano xaabadii aynu doonano dabkii lagu shidayay aynu doonano shuuradii markaynu karino shaygii lagu guray lagu riday aynu kadib shuuradii markay noo bislaato aynu xeedhadii soo qaadano aynu qudiyowgii soo qaadano aynu dhiilkii yare caanaha lagu shubay soo qaadano oo sidoo kale aynu raadsano meel caana geel dhalay oo Ramadan lagu hayo. marka miiga waxaan ula soo xilanay inaanu cunto wadan inaanu ku karino ama shayga loo yaqaan shuurada inaanu si aanu macnaha dhaqankeeni hore aanu quruxda badlaa si aanu dadka u tusno aanu u soo bandhigno. haddaba maanta waxaanu bilaabanaynaa si aynu shuuradii u karsano. shuuradii markaynu karano marka hore maxaynu sameynaynaa galadii baan soo qaadaynaa tibiyo mooyaan soo qaadaynaa mooyii baan soo qaadaynaa mooyaa ka horeeya waxaan ku shubaynaa galadii markaynu ku shubnaa yaroo biyo baynu ku tiixinaynaa si ay galeydii u buusha baxdo. markay galeydii buusha baxdo ee mooyii ku tuntid 2 qofna markaa dad qof kale haduu ku caawiyo waa u kala tumi karaa laakiin qof quraatu u tumi karaa because waaya maanta aniga kaliya ayaa tumay shuuradii oo buusha bixiyay. markaad galeydii markaad buusha bixisay masafa soo qaadanaysaa kala haadinaysaa haddana mar labaad bad ku celinaysaa mar labaad ka lagu celinay waxa dhaa jabis waa la jabiyaa galeyda. marka la jabiyo haddana wad kala sigeejinaysaa masafta ku kala sigeejinaysaa inta weyn baa ku soo hadhaysa mooyaad ku celinaysaa mar labaad baad jabinaysaa. marka arbaxdu si u kala dhigan nugushahay bay ku xidhan tahay. marka galeydu haddii ay jilicsan tahay 3 jeer 2 jeer baad ku jabin kartaa laakiin haddii galeydu dhaga adag tahay ilaa 4 jeer 5 jeer bay ku qaadanaysaa. markaad arbaxdii markaad jabisid si qurux badan istiraawi ku jabtay baad waraysaa ceedad dhigaysaa dhagaxii baad soo qaadaysaa waad ku ridqaysaa dhagaxii markaad soo qaadid ku ridqdid bacdeen shuura ku noqonaysaa. marka maxaa kaga dambeeya shuuradii markaad ridqday inaad dherigii doontid 3dii dhadhaar doontid qudihii doontid shuuradii ku shubtid ku walaaqdid karisid. markaad karisid maxaa ku soo raaca inaad xeedho soo qaadid ku ridid fandhaaladeedii u doontid. maxaa kaaga dambeeya inaad dhiilkii caanaha lagu lisayo ku culayna soo qaadid oo geeli lagu soo maalo shuuradii deetana saa loo soo dhax qotomiyo bacdeen saa lagu cuno. marka dhaqankeena quruxda badnaa ee qiimaha lahaa baanu maanta idin soo diyaarinay si idinkuna 10 aad uga barataan.